Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu magacaygu waa Mr. HA waxaa naga daawanaysaa Somali Technology Page maanta waxaa tusayaa qaabka aad isu download lahayd aad ula soo degi lahayd video kaste muuqaal kaste YouTube-ka iyo Google ba okay laba hab baa ku tusaya oo aad u fudud habka koowaad oo ah inaan isticmaalno website-ka loo yaqaano safefrom.net anagoo aan isticmaalin wax application ah habka labaad oo ah inaan tuso qaabka aad application aad u isticmaali lahayd okay let's go and we start Google Chrome ayaa kicinaya hadeer dabeetana YouTube-ka ayaan tegayaa because muuqaalada waxaan kasoo download garaysanaynaa YouTube-ka dabeetana muuqaalka aad jeceshahay ayaa raadinaysaa YouTube-ka dabeetana markaa heshid muuqaalka aad jeceshahay tusaale ahaan muuqaalkan oo kale ayaan rabaa inaan soo download garaysto asaga ayaan ku dhufanayaa okay habka koowaad waxa weeyaan inaan isticmaalno software ama website web application loo yaqaano safefrom.net okay saan u isticmaalno softwarekaas ama websitekaas waxaan u baahanahay inaan copy gareyno linki URL-ka ama linkiga videogan okay linkigan ayaan copy gareynaynaa copy ayaan dhahayaa dabeetana khaanad cusub ayaan furayaa window cusub ayaan furayaa halkaas waxaan ku qorayaa safefrom.net safefrom.net ayaan ku qorayaa okay enter ayaan odhanayaa okay website-ka waa ii furmay ama application-ka waa ii furmay dabeetana linkiga aan soo copy garaystay ayaa waxaan ku paste gareynayaa halkan okay control V paste ayaa odhanaya dabeetana videoga ayuu raadinaya YouTube-ka ayuu kasoo raadinaya iyo Google markuu soo helo videoga halkan ayuu kusoo dhigayaa dabeetana download ayaa odhanaysaa okay waa very easy step download ayaa odhanaysaa videoga saas ayaad kula soo degaysaa okay videoga waa kan okay qodobka labaad waxa weeyaan waxaan u baahanahay inaan download button aan halkan keensado okay download button ma raba inaan URL copy gareeyo dabeetana aan website kala furo aan ku paste gareeyo markaas aan soo download garaysto waxaan u baahanahay very easy inaad download button aan halkan keensado it's very easy okay marka waxaan furanayaa khaanad cusub ayaan furanayaa halkaas waxaan ku qorayaa safefrom.net website katir ayaan ku laabanaynaa okay marka waxaan soo download garaysanaynaa application laakiin applicationkaas computerka kuma shubanayno browserka ayaan ku shubayaa applicationkaas okay waa tusaya okay markaan website-ka furto waxaan tegayaa qaybta install ayaan ku dhufanayaa qaybta install markaan tago waxaan ku dhufanayaa instruction okay halkan waa akhrin karaa warbixinada application-kan iyo qaabka loo isticmaalo okay up to down marka instruction ayaan ku dhufanayaa instruction markaan ku dhufto wuxuu isiinayaa tilmaamo qaabka aan u isticmaali lahaa iyo qaabka aan u install garayn lahaa application-kan into Google Chrome okay marka waa 3 point koowaad waxa weeyaan add middle monkey extension from Google Chrome inaan ku daro extension to Google Chrome okay iyo qodobka labaad oo ah add safefrom.net helper script iyo inaan script aan ku daro sidoo kale Google Chrome okay qodobka saddexaad oo ugu dambeeya waxa weeyaan congratulations okay now you can use it you can download anything you want marka qodobka koowaad waxaan odhanayaa add okay extension ayaa waxaan ku daraynaa Google Chrome extensionkaas wuxuu naga caawinayaa in softwarekan wax soo download garaynaya iyo Google Chrome ay si fiican iskula shaqeeyaan okay marka add ayaa odhanaya add Chrome extensionkan okay waa application laakiin applicationkan computerka ma soo gelayo Google Chrome ayuu gelayaa extension ahaan u gelayaa okay add to Chrome ba odhanaysaa add to extension ayaa ku dhufanaysaa okay halkaas ayuu soo fulaya iconkiisa markuu dhameeyo okay now it's added iconkiisa waa aragtaa dabeetana waa ka laabanaysaa cancel ayaa odhanaysaa waxaa u gelaysaa qodobka labaad oo ah add now okay script ayaan ku daraynaa okay marka add now ayaa odhanaynaa khaanadan ayaa noo furmaysaa ama waxaa noo furaya pagekan cusub dabeetana waxaa ku dhufanaysaa confirm installation okay you are going to install this script into Google Chrome okay confirm installation ayaa ku dhufanaysaa okay it's installed you see it's installed okay the work is done okay the work is done qodobka saas waxa weeyaan helper now you can browse now you can use it congratulations now you can use it okay let's go back to YouTube kan ku laabano refresh ma u diraya YouTube Welcome back, everyone, to the Xamarin Show. I'm your host, James. okay marka YouTube refresh u diro waa aragteen download button waa very easy
any video I want waa loo soo degi karaa anoon waxa copy karayn anoo link iyo website kale aan furin simply I can download any video very easy okay intuusan video kale ayaan furaya download button waa kan. Okay, that's how you can add a download button into your browser, and you can download any video from YouTube or Google or even Facebook. This one will work Facebook, okay, because if you read these things you can download videos from YouTube, you can download things from this one website, you can download from Facebook, you can download from all these other things. Okay, you can do it. You can download music from music websites, you can download many things. Okay, so that's how you can add a download a software into a browser, not into your computer. Okay, you can also download a downloader, internet downloader into your computer. You can install into your computer, but that one I will never recommend. I will recommend this because this is easy way, very easy, because you are not going to install any software into your laptop or computer. Everything is installed in a browser or just Google Chrome. Okay, thank you. Subscribe if you didn't subscribe to this channel. Is for you guys. Okay, see you next time with another episode.